بسم الله الرحمن الرحيم داود يل ku soo dhawaada muuqaal aynu ka sameynay hees kamid ah heesaha caanka ah ee ay qaado Sara Axmed sababtay ku soo baxday heestu waa badda caashan waxa qaaday Sara Axmed waa heestii koobaad ee codka u sameeyso ama naaxiyada lagu qaadayo midhaha heesta waxa leh Maxamed Cumar Xuseen Huriyo sababay salahay على هلاد كون يسقال بقول يلبيه الضباط كي محمد عمر حسين هوريو يا أحمد سليمان بدو كحرن شال كمديرة أيها جور ظهره كل شيء قدر الله كاني لو راعي فرحين هاي قبل يسكون أكسناء هوريو إني ضلك كبح حيسو وقم هذا تبوتي لو جورسني وركاس واحد يكون قتيل فلاد aanu filan haynin oo wadnaha goysay Maxamed Cumar Xuseen waxa ku adkaatay gabadhii waadka u jeclaa inay si sahal ah farihiisa uga murxsanayso mustaqbalkiisa damana aanay sarki doonin maxaad samaysaa ragtala kama dhamaatay maan ku rogrogay talooyin badan baa ku soo dhacay wuxuu yiri wartalow miyaad isbukaysiisaa oo intaad soo dhaabaad waan xanuunsanaya balsi dhakhtarka hadaad sugu aragtaan mise jeelkaad ka baxsataa mise ninka jeelka haysta durraansataa oo ka codsataa inuu gabadha la kulankeeda ku fasaxo si aad u soo noqoto dhammaan isku dayadii oo dhami waxay ku dhamaadeen guuldaro Axmed Saleebaan isku dheeraayeen baa ku yiri warag calaamadahay wuxuu dhaaman la waayay iska adkayso oo gabadha faraha qaad isna taladii uu qaatay waxa uu dabeetay sameeyay heesta tirada badda caashaqeen gurin waxa oranaysaa badda caashaqeen gurin in cidi ka soo bixinaday baray moogtahay kolkii aan bariinsaday ka baxday macaa dhacay beenaysi wacadkii nafsi waa ma baaqday adoo baahan la arkay intaas in ku koobayna sababta ay ku soo baxday heesta badda caashaqeen gurin in cidi ka soo bixin aday baray moogtahay